أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. تفسير كأنه وحكب الله بنايا آيات 9 سورة البقرة كمدة ولي وحان كجرناه آياته كهدلاي reer banu Israa'iil iyo mawaqiftii kala duwanaa ee ay ka istaageen diinta islaamka iyo waxyigan cusub ee uu soo degay. Waxaan soo marnay ayaga oo diiday waxyigan oo beeniyay isla markaasna ku adkaystay inay wixii ayaga lagu soo dejiyay oo kali ah ay rumaynayaan inta kalena ay diidayaan. Waxay soo yiraahdeen nu'minu bima unzila alayna wa yakfuruna bima wara'ahu wa tu ilaahi inoo soo tilmaamay. marka diidmada ay hadda quraanka diidayaan hadda ma ayna bilaabin horay inay rasuulkii loo soo diray ayaga ay yaqaaneen nabi Muuse ah inay horay u diideen iyo wixii ay ku sameeyeen ayaa aayadahan inooga hadlayaan si ay u cadaato nimankani inayna xaq ayna rabin yaani arinta ugu wacan inay xaq ay diidaanna ay tahay xaasidnimo iyo gardarro ku jirta. rasuusha Ilaahay mid ay sidii la rabay ula socdeen ay u rumeeyeen ba inuusan jirinba. markaas Ilaahay wuxuu leeyahay ولقد جاءكم وحائدين يمد موسى نبي موسى أيا إذين يمد بالبينات حجوينك عضعضاء أيو إذين لي يمد. ثم مركز كذب اتخذتم محاد سميستين العجل الدبيجي آيات سميستين إلهي كدقتين من بعده موسى كذب. مركز نبي موسى إذين كتغي سيئو كتابك يعني أسو قاضو وآذي بورتي طور السيناء انتي مغنى كذب ayaa waxaad sii samaysateen dibi aad Ilaahay ka dhiganaysaan wa antum idinku oo zaalimuuna arintaas ku gardaran oo inaad dibi sii caabudaan ay gaalnimo iyo dhulmi ay tahay. marka arintan aayadan waxay tilmaamaysaa marka oo sibirsiin u tahay ugu horeyn nabiga sallallahu alayhi wasallam marka dadkan dabeecadooda loo sheegay reer banu Israa'iil ama yahuuda inay dabeecadooda ay tahay dabeecad wax diidmo oo rasuulkii loo soo diray nabi Muuse ahaba ay saas ula dhaqmeen. maxaad u maleeyay macna rasuul kale oo aysan isku luqad ahayn oo ayna isku qabiil ahayn ama isku qowmiyad ayna ahayn kii isku qabiilka ay ahaayeen bay saas u galeen midka kale ee isku qabiilka ayna uu ka sii daran yahay. marka waxa la nimankani waa niman dhaqankooda uu saas yahay. walaqad jaa'akum Muusa nabi Muusa ayaa idin leeyin bil bayinati xujooyin cadcad. waxa kamid ah xujooyinkaas cadcada ushii intuu dhulka dhiga maska noqonaysay gacantii cadaanaysay iyo aayada kale. aayadahaas waxay marka ku tusinayeen Ilaahay waaxidnimadiisa rasuulku inuu rasuul yahay inay raacana way ahayd laakiin ma ayna yeelin. ثم اتخذتم محاد سميستين العجلة دبيغا اياد سميستين من بعد قداشيسا يعني سببتا اي دبيغا سميستين يعدة سميسي يوحي كربين ايضا فاسان اين ايادك الوغو تجدونا لكن هالكان ايضا اجمال اما دوبا ايا موقف كوضا يعني ان سلو موجيو ايا الله الشيء ثم اتخذتم العجلة دبي اياد سميستين من بعده موسى كدب اياد دبي سميستين وانتم اذنكو ظالمون ارهنكاس كو قردران وإن دبي سميستان حق ما اين اهين. وإذا أخذنا ميثاقكم وإذا وقت حسا هدات ريب بنو إسرائيل تين أخذنا أنقاضني ميثاقكم بلنتيني ورفعنا أن كريالني فوقكم كركينا الطور بورتي طور الهجري أن كركينا كينا أنصاق قادني خذوا أنا إذن كلها خذوا قات ما آتيناكم وحي أنا إذن سيني بقوة سعذق ونيدأ وقاتا واسمعوا مغلا ورك الذين شيئا سفي عن مغلا. قالوا وحي هذين سمعنا وان مقلني وعصينا وان عاصني وأشربوا حال عبسيي في قلوبهم قلوب توضا وحال عبسيي العجلة دبيغ جعيل كيسا يا قلب قوضا لقلي بكفرهم بسبب كفرهم قال لماذا وضا درادت ايا دبيغ جعيل كيسا قلب قوضا لو قلي قلوا حاد كتر هذا بئس وحاح ماضي ما يأمركم وحو إذن أمرها به أساقا إيمانكم إيمانكين إن كنتم هديئاتهين مؤمنين هداتهين وحاو إذن أمرها إيمانكين أيا أذفوا الحماضي ساس كل عليه. marka nimankan inaysan xaq doon ahayn ayaa aad loo si cadeeyo waxa la waxaad xusuusataan waqti ballan la idin ka qaaday ballantaas laga qaaday inay rasuulka rumeeyaan oo ay kitaabkii tawraada ahkaamta lagu sheegay ay qaataan ayay ahayd
لكن ريبن إسلام ما دام تربية ظهيرة يمشي كسر بربارين فرعون جميسي جسي هاي حرية دلجارسية عقل جواد الله يعني ما أنفعيسه وحي أوبرتين أي ربان أو إن العدادية أي ربان سمرك كتاب كيلوسيو أو يعني أوقاتان يا وحل سوق جوي لسوف جي بور مقعد الطور ليله هذا بورتي أيا كرك هذا أيا لكاني مركز وحل ويري كتاب كتوريات أحكامته وشيء أما قاطع أما نجحن أيا اللي ينكسوا الدين أيا وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة مركز نجح إلى كرك يعني إلا وضد إن العبسية أوبرتاه مركز وحيد هذا وين يالني نجحنا لقى عليو marka in saas horta hor wax la idinku fahamsiin jir balto xusuusnaada way macna hadii hadda si tartiib wax la idinku sheegayo oo rasuulkan la soo diray oo xaq idinka dhaadhicinayo oo inuu idin la hadlo oo idin qanciyo oo rabo dad yaani aqligooda uu ku filan yahay matiidiina dad u bartay in la garaaco barto in baatiine bal dabeecadiina bal u fiirsado oo dadkii idinku horeeyay yahuud ahna saas loola soo dhaqmay bal bini aadamnimadiina oo seel la rabo inaad noqotaan isaa u dhaqmaysan si u kala duwan tahay bal fiiriya xali wa id waqti akhadna aan qaadnay miisaaqakum balantiina ورفعنا أنكر يلني فوقكم كركينا الطورة بورتي أنكركينا أن يلني خذوا ما آتيناكم وأن إذن خذوا قاتا ما آتيناكم وحي أن إذن سيني بقوة حوك قاتا يعني سعدك وعزيمة ينيدي أي كجرتو وقاتا أحكامت إلهي يعني لبلبع إيو قيبتي إيقا أنفعلان كقادا قيبتي نفتي إذا إلبستان وانسكدين ماها تدين كحويها وحاس أما أديك مركز لبها كوجرو أما دافع كوجرتو مربى هدوء حكم إلهي وياهي وقاضشوا خذوا مرك قاتل ما آتيناكم محن سنة بقوة سعدك أم حوجة وقاتا واسمعوا مغلا ورك الإذين شيئا دقيستا قالوا وحير هذين سمعنا وان مقلني وعصينا وان عاصني وأشربوا وحال عبسي في قلوبهم قلوبته العجل الدبجة يعني قلوبته الدبجة العبسي وحيتها دبجة مرك اللي يسكت دايا النبي هارون أيال جوجي وحكوير يسكت عارف الدبجة عابدين يعني دبيغان للسميي ايا جعيل waxa qalbigooda galay ah dibigani inuu sax yahay inuu ilaahay yahay in la caabudi karo marka waxaas yaa ka dhaadhiciyay yani shaytaan baa waxaas geliyay oo yani ma aha yani wax fiican wax ay ku socdaan hadana waxaas xun ayaa la fiicnaaday yani waxa loo qurxiyay wixii xuma ayaa loo qurxiyay marka ushribu wala cabsiyay wala geliyay fi qulubihim qulubtooda al-ijla dibiga jacaylkiisa iyo ku dhaganaanshiisa ayaa qalbiga loo geliyay بكفرهم قال لماذا درادي أيانا ساسلو يالي قل وحاتر هذا بئس وحاب حماضي ما يأمركم به وحا إذن فرأي إيمانكم إيمان كينو إن هذا إلهي بانهم يسنى هذا حدنا إلهي أذو حلو ذا جسان ودبئ العابدان إيمان كاس أن حماتد إذن كعلنين كاس إيمان معه يعني إيمانك وحال الربا روح دمر إيمان أوليه إنه وحي في عنا يعني إيمان كيسو فرا وحي حنا إيمان كيسو كعليو qofku inuu iimaanka xakameeyo ayaa la rabaa laakiin iimaanna waan leeyahay wax alla waxaan rabaana iska sameeynaya iimaankaas ayaa lagu jiraa waa in dib la isu fiiriyo la isu muraajaceeyo halkeena laga haysa waa in la yiraahdo oo iimaankaas yaani dib loo muraajaceeyo iimaanku marna wuu bataa marna hoos ayuu dhacaa oo waxa culimadana ay yiraahdaan al-iimaanu yaziidu bid-daacaat wa yanqusu bil-macaasi iimaanku daacadana wuu ku kordhaa ama wuu ku bataa macsiyadana hoos ayuu ugu dhacaa marka iimaan keenay in dib la caabudo oo markii laga celiyo la yiraahdo war dibigana caabudina ilaahay ma ahana dhahayo ma yeelayna dibigana nala fiicano jacayl dibiga u haaya iimaankaas asaga ah kii saxa aha ma aha waa mid xun way macnaha qul waxaad ku tiraahdaa biisa waxa xumaaday ma ya'murukum wuxuu idin amraayo bihi asaga iimaanukum iimaankiin wuxuu idin faraayo ayaa xumaaday in kuntum hadaatihin mu'miniin hadaatihin ba dad mu'miniintiin waa iska deyn lahaydeen قل إن كان لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس أيضا وحكاها الله لما كان أساس لوغسو شاكيي يهودا حق أن وحبكوا فلينين أيها هدانا ساس أي تاي وحيدتك عامضة أو آخرنا أينا أو شيئا آخر مركي لتاقو جنة أيقو إن إسكاليهين أدونك مركي لجوغنا إن يهين شعب الله المختار شعب إلهي ودورتيو ومضاها كالي أي كو قسبينيهين إن أيقو أخذ ميان أما يو أذيقان عدي ساس يلوي سنة عد إلهي خلافة أمركيس إنay tahay آخرنا ayaga ay u xiran tahay dadka waxaas ku akhrinayaan dadka caamada marka qaar run u maleeyo yahuudu inay ayagu ahli janna yihiin ayay u qaateen marka quraankan si uu xujada ugu oogo yaa waxa taxaddi lagu la galay ama yaani loo soo bixiyay oo la yiri hadii aad waxan aad sheegaysan uu run yahay oo janna idinku aad iska leedihiin
ruuxii jannahuba inuu galaayo adduunkan iskuma daadaahiye horay ayuu u socdaaye inaad dhimataan bal jeclaada lay marka inayna arrintaas yeelaynin qur'aanku uu sheegayaa arrintaas marka fadeexa uga ah marka qul waxaad ku tiraahdaa nabiyow in kaanad hadday tahay lakum idinka ad-daarul aakhiratu daarta dambe cinda allaahi ilaahay agtiisa khaalisatan mid gaar ah min duuni nnaasi dadka sokadooda haddii idinka ay daarta aakhira idinka idiin xiran tahay oo dadka kale idinku aad ka xigtaan jannada fatamanaw tamaniya ama jeclaysta almowta geeri in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegaaya haddii jannada idinkuna aad gelaysaan dadka kale haddaad idinku jannada ka xigtaan si jannadaas aad dhaqso u gashaan hadda waxaad tidhaahdaan ilaahayow na dil haddaad saas dhahdaan markaas intii laydin dilo ayaad jannadii horka gelaysaan hadday runtiin tahay oo jannada idinku aad iska leedihiin meeshii qofka asagu iska leeyahay gurigiis wuu u dhaqsadaaye jannada u dhaqsado oo geeri inaad dhimataan ilaahay weydiista bal haddii aad samay arrintaas iyada ay runtahay waa bal arkayaaye qul waxaad ku tidhahdaa in kaanad hadday ahaatay lakum idinka addaaru alaakhiratu daarta dambe cinda allaahi ilaahay agtiisa khaalisatan mid gaar ah min duuni nnaasi dadka sokadooda hadday idinka idin gaar tahay oo ilaahay agtiisa daarta aakhira idinkuna aad leedihiin fatamanaw jeclaysta almowta geeri in kuntum saadiqiin haddaad run sheegaysaan walan yatamanawhu ma tamaninaayaan abadan weligood bimaa qadamad aydiihim gacmahooda waxay hormarseen sababteeda ayayna u tamaninaynin yahuudan dadka kale ee cilmiga aan lahayn ee caamada unbay siraayaan maahine xaqiiqadooda way is og yihiin inay yacni ku kufriyeen risaaladii ilaahay oo nabiga ugu dambeeyey ee lasoo saaray ay diideen oo naar ay geli doonaan oo janno aysan shaqo ku lahayn way og yihiin laakiin dadka kale ee u yaqaana ahlu kitaab oo ayagaa kitaab haysan jiray oo caamada ah yay kuwaasay waxay ku leeyihiin jannada annagun baa geli doona marka waa la fadeexay waxaa li haddaad idinku jannada gelaysaan waabaad arki doonaaye inaad geeriyootaan tamaniya ilaahay inayna yeelin ayuu inoo sheegay maxaa yeele ilahay wuxuu og yahay dabeecadooda iyo sida ay og yihiin waxaan ay sheegayan inay been tahay markaas ilahay wuxuu yihi walan yatamanawhu ma tamaninayaan geeridii hadda la yidhi tamaniya abadan weligood waxa ay u diidan yihiin aysan u tamaninayn waxay tahay bimaa qadamad aydiihim gacmahoodu wixii ay hormarsadeen oo gaalnimadan iyo faasiqnimada iyo waxa ay wadaan way og yihiin saas daraaddeed ruux markuu ruux xun uu yahay dhimashada aad ayuu uga cabsadaa maxaa yeelay yacni adduunyadana waxoogaa isugu yara aadan yahay oo inuu iska yara noolaado ayuu jecel yahay god haddii la geliyo naar halkaas ay uga bilaabanayso qof aan aakharo u shaqaysanin dhimasho ma jeclo laakiin qofkii yani ilaahay ka cabsado adduunkan oo mu'min ah yani waad dhimanaysaa kama cabsado sababtu maxay tahay adduunyadan dhib unbaa yani ku haysta meel ka fiican ayuu tegayaa yaqiintaasna wuu hubaa laakiin ruuxii is og oo waxa uu samaynayo ilaan ruux walba is og yahay waxa uu samaynaaye gadaal inaysan waxba ka jirin qofkii og dhimasho ma jeclaanayo marka yahuud waa sidaas oo weligoodna ma tamaninaayaan gacantooda waxay hormarsatay ee gaalnimo ay og yihiin daraaddeed wallahu ilaahay caliimun alla og ayuu ahaaday bidaalimiina daalimiinta ayuu ilaahay og yahay kuwana waa daalimiin walatajidannahum axrasa annaasi calaa xayaa ayadan waxay tilmaamaysaa nimankan la leeyahay tamaniya geeri meesha ay dhimasho ay u joogto iyo say uga cabsanayaan iyo dhaqankooda iyo dabeecadooda sida uu yahay waxaa lihi walatajidannahum waxaad helaysaa kuwaas yahuudda ah oo ah axrasa annaasi dadka kuwa ugu dadaalka badan calaa xayaatin nolol korkeed wa min aladiina kuwiina inay ka dadaal badan yihiin oo nolosha kaga dadaal badan yihiin ashrakuu ilaahay wax la wadaajiyey yahuuddu dadka oo dhan ayay nolosha ugu jecel yihiin waxay aada uga sii jecel yihin weliba kuwa gaalada ah marka kuwa gaalada naftooda dadkun bay ka mid yihiine maxaa si gaara loogu xusay oo waxaaba ku filad in la yidhaahdo dadkaoo dhan ayay nolosha ugu jecel yihiin gaalada ilaahay wax la wadaajisa xataa way ka jecel yihin aa layidhi macnaheed waxay tahay khaaskan oo yacni oo kuwan ilaahay wax u shariig yeelay markii caam loo soo sheegay oo li dadkoo dhan ayay ka nolol jecel yihiin waxa loo sii xusay waxay ahayd inta la yaqaano ee dad ah kuwa nolosha ugu dadaalka badan ayaa waxay kuwan gaalada oo ilaahay u shariig yeelay inay dhintaan ma rabaan kuwii marka kufaaru quraysh ay yaqaaneen carabtu ay yaqaaneen mushrikiinta ah ee geerida aan jeclayn kuwa ka daran ayaa la helay oo yahuud la yiraahdo oo dadka oo dhan oo ay ku jiraan waliba kuwii gaaladaas ahaa ee ilaahay u shariig yeelay ee nolosha jeclaa kuwa ka sii nolol jecel ayaa la arkay marka wala tajadannahum waxaad helaysaa kuwan yahuudda ahoo axrasa annaasi dadka kuwa ugu dadaalka badan ah calaa xayaati nolol korkeed xatana nolosha xataa nolol fiican shardi ma ah inay ku dadaalayaan kan yahuudiga ihi xataa wuxuu diyaar u yahay inuu iska noolaado nolosha ugu xun uu ku noolaado xataa in la dulaysto oo yacni maxay ahayd lagu shaqaysto haddiiba nolol la siinaayo yacni raalli ayuu ku noqonayaa
noloshu nolol waxa jirta aynan inay qofku uu yani uu noolaado aysan qiimo lahayn hadii qofka yani uu leeyahanaysto oo la duleysanayo oo wixii uu aaminsanaa iyo hawshii uu yani qabsan lahaa loo diidan yahay noloshaas iyada nolol qiimo leh ma aha qofka muuminkana yani duleysi ma ogolaado iimaankiisa ayaa u diidaya laakiin yahuudigan wuxuu raali ku yahay hadii xataa tii uu rabay ee fiicneed uu waayo oo la qabsado oo dawlad ka awood badan uu soo hoos galo inuu iska noolaado oo yani meel xun ku noolaado oo la duleysto oo lagu shaqeysto oo la ihaaneeyo yani uu iska ogol yahay inuu noolaado oo kali ah nolol aan qiimo lahayn xataa uu iska ogol yahay marka waa dadka ugu nolol jecel ahrasan naasi dadka kuwa ugu dadaal badan ayadan ala xayaati nolol korkeed ومن الذين كوينا ويكدد البدنين أشركوا إلهي وحلا وداجيه يعني dadka oo dhan way ka nolol jecelyihiin حتى kuwa mushrikiinta ay naftooda aad ku nolol jecela yahuuda ayaa ka sii nolol jecel inay nolol jecel yihiin iyo da'da ay rabaan inay gaaraan ayuu quraanku sii tilmaamayo waxa la yawadu ahaduhum midkood wuxuu jeclaysan ahaduhum midkood mid yahuuda kamid ah wuxuu jeclaysan law yu'ammaru illa umri siiyo 1000 سنة كن سنة إن العمر سيو أيو جعليسان وهذه اللي هذا إمي سأيات جعشة إن أدون كان كن ولاته وحديار وياهي إنه يراهده وحان جعلهاي كن سنة إن النولاده كن سنة الدنيا أيام صباح يودوا وحج عليسان أحدهم متكود لو يعمر هذه العمر السين لها 1000 سنة كن سنة إن العمر سيو وما هو مؤسن أهان بمزحزحه مت كفجيني أما كالريحي من العذاب عذاب حقيسة أن يعمر إن العمر سيو والله إلهي بصير الله أرك أيو هذا بما يعملون وحي سمين عيان يعني من كان يهودا ومتك أيها كمده وجعلها كن سنة إنه نولاده حتى وحالي هديبا كن كسنة الله سيو ولي هذا كن سنة نولو يعني نولش أصدر اللي سيي عذابك إلهي كمل لي حنيسو عذابك وسجايا ولي جاب صون نولو الدنيا ده أو إسك جوج وأنت عرفت جوج لكن قدام بيس روحه قد بقدم بين دونا يعني شاعرك ويري فمن يعش 1000 أو 2000 فلا بد من يوم يسير إلى القبر قفكي نولادا كن أما الله كن حتى نولادا وقدام بيست قبر يا قدام بيا مثل نحول كل ابن أنثى وإن طالت سلامته فلا بد يوما في آلة حدباء محمول ميده هو يدش سكستو أو نرشي سو أو ديراتو أو نبض أو هيستو عافمات أو قبو وقدام بيست نعش بالو قاعد دونا ودشay uu dhinteen ba u dambaysa marka yaani naarta suugaysa yahuuda kun san haday meermeeran hatta adduunyada ay joogan kunkii sana soo dhamaadin baa la arki waxana yaani kunkan sana adduunyada la tirinay wax weyn ma ah laakiin ayagu noloshaas iska jeceliin yaani ilaahay maxal hor tagaysaa iyo maxal amal wanaagsan sameynaysa shaqadooda ma aha inta adduunyada ay joogan oo inay ku daahan ay jeceliin intaas inay ku raaxaystaan oo wax walba iska sameeysan ayay rabaan taasna mid hadhow bixin doonta ma ay aha marka xali wama huwa muusanaani bimuzahzihi mid ka fogeynaya ama ka dheeraynaya min alcadaab cadaabka an yu'ammara in la umri siiyo oo umrigiisa la dheereeyo oo kun sano uu noolaado kun sano noolaaday cadaabki waa laga daayay noloshaas dheer ayuu ku badbaaday meesha ma taalo ee waxa lagu badbaadaya amal wanaagsan ayuu soo shaqaysay ruuxani ilaahay ayuu ka soo cabsaday naarta laga fogeeyo saas waa lagu badbaadaa natiijada runta ana waa sidaas oo ruuxi naar ka badbaada ayaa liibaanay faman zuhziha 'anil naari wa udkhila al-jannata فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور مركا عمر دير أيام نولا تاس عذاب كفكن ما يسهدو والله إلهي بصير الله أرك أيو هذا بما يعملون وحا أي سمينا يان إلهي وأجيدا ظالمين يكوا قردرا يقفوا البؤ يعني لينا إنه أود إسبدايو هؤلاء حصوص إلهي إنه أجيدو ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم اليوم تشخص فيه الأبصار مركا والله إلهي بصير الله أرك أيو هذا بما يعملون وحا أي سمينا إلهي وأركايا قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه أيضا نحيكها اللهيان يهود لمن حشوذ معه سيدي أي أودين يعني هذا الكحن يوحى أي سمينا أيان أنت النبي يمدين صلى الله عليه وسلم أيها وحي كوير هذين نبي والباء وحاجر ملك يماده ووحي أكينه adiga yaa waxyiga ku keena si aan ku raacno bal yaani malaga aad ku xiran tahay risaalada ama waxyiga ku keena waa kuma markaas wuxuu yiri jibriil waxyiga waxa ay keena malakul jibriil ayaa ay keena markaas waxay leeyahay malakul jibriil waa ninka yaani cadaabka iyo dadka la halaagayo iyo dagaalada iyo gaalada markii yaani la rogaayo ninka loo soo diray ee halaaga waa malakul jibriil saas daraadeed yaani ma dumar saaxiibka yahay oo adiga uu ku imaado
annaga halkaasaan isku weynay kuma raacayno markay saas yiraahdeen oo waxay yiraahdeen haddii aad sheegan lahayd midka adiga ku imaada ee malaga hadduu Mikaa'il ahaan lahaa kaas oo roobka iyo naxariista la soo daga waan ku raaci lahayn saas markay yiraahdeen aayadan soo degtay qul man kana aduwwan li jibriila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin qul waxaad ku tiraahdaa man kana qofkii ahaaday aduwwan col qofkii la ah li jibriila jibriil qofkii col la ah fa innahu jibriil nazzalahu soo dejiyay qur'aanka ala qalbika qalbigaaga korkiisa ayuu qur'aanka ku soo dejiyay bi idnillahi ilaahi idankiisa ayuuna la soo dejiyay musaddiqan xaal uu qur'aanku rumaynaayo lima bayna yadayhi kutubtii ka horeysay wa hudan asagoo hanuun ah wa bushra asagoo bishaara lil mu'minina mu'miniinta u ah yani marka yahuuda colaadooda meesha ay gaartay yani horta koo waxay colaad u qaadeen rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam ay la colaytameen waxay ula colaytameen qur'aankana uu inoo tilmaamayo meel kale waa lagu sheegay waxay filaayeen in ayaga lagu soo dejin doono waxyiga ugu dambeeya kitaabkan qur'aanka ah markii laga leexiyay oo nin carab lagu soo dejiyo oo ayaga oo reer banu israa'iil aan ka dhalanin way xanaaqeen waxay yiraahdeen maxaan loo garab mariyay haddana waxay yiraahdeen horta yaa ku soo dejiya malakul jibriil soo dejiya malakul jibriilna way xanaaqeen waxay yiraahdeen maadaama uu asagoo keeno qur'aanka ama waxyiga uu keeno asna col ayaan la nahay sababtu maxay tahay ninkana garab mariyay waa asaga markay saas yiraahdeen ya ilaahay wuxuu ku yiri sidaas arinku ma aha yaani jibriil wax asagoo intuu iska maagay waxyiga cid uu rabo uu ku dejiyo ma aha ilaahay ayaa u soo dhiibay risaalo ayuu gudanayaa yaani qofkii col sidaas ula ahna ilaahay ayuu collayahay marka qol waxa tiraahdaa man kaana qofkii ahaaday aduwan col qofkii la ah li jibriil fa innahu nazzalahu ala qalbika fa innahu asaga nazzalahu wuu soo dejiyay qur'aanka ala qalbika qalbigaaga ayuu ku soo dejiyay bi idnillahi ilaahay idankiisa musaddiqan asagoo rumaynaya lima bayna yadayhi hortiisa wixii ahaaday yaani qur'aankani qur'aan gaar isaga socda ma ah waa qur'aan dhameystir u ah kutubtii ka horeysay hadii marka nimankan yahuudi ah ay tawreed ay haystaan kuwa nasaaradana ay injiil haystaan yaani tawreed iyo injiil iyo furqaani isku meel ayay u socdaan way isdhameystirayaano yaani kitaabka kale wuu ogol yahay kitaabkana ugu dambeeye musaddiqan asagoo xaalu yahay mid rumaynaya lima bayna yadayhi kutubtii ka horeysay wuhudan asagoo hanuun u ah wa bushra asagoo bishaara u ah lil mu'minina mu'miniinta man kana aduwan lillah man qofkii kana ahaaday aduwan col qofkii u ah lillahi ilaahi iyo wa malaa'ikati malaa'iktiisa wa rusuli rusushiisa wa jibriil malakul jibriil iyo wa mikaala malaga mikaa'il yiraahdo fa inna allaha ilaahi aduwan col ayuu u yahay lil kaafiriina gaalada يعني وحالي من كان عدوا لله قفك إلهي عل يعني يهودني وعل إلهي يعليهن أو وحي إلهي كوهيستان ما ملكيسة وروحي ورسول كدغانايو يا وحي إلهي محاد عي وأنا نلوغ الليحي إلهي محو أنك نوغ قرب مريي إلهي مي وحوت الماما يا مركة إلهي أساق يا أغماش وقيسنا رسالة ديس الله أعلم حيث يجعل رسالته قفك مركة إلهي لعليتم وما ملكيسة كو قبصده من كان قفك هذا عدوا لله إلهي عل قفك لا نقض أو إلهي يعني هذا إلهي مرة بو عل أيان لا إلهي ونعبنا قفك هذا من كان عدوا لله قفك إلهي عل النقض إيو ملائكتي ملائكتيسة إيو رسول رسوشيسة مركا هذا وملائكتي ليري وملائكتي أوطن مركا هذا سيجارة وحالله حسي قار ملائكة كترسن أو جبريل يا ميكائيل كمديهين مركا جبريل يا ميكائيل معناها إن النوع كليهين أو ملائكة عناهن ما هي ملائكة أي كمديهين لكن ما دام ضد يهودا كمديها أي سجارة يعني أو أتاجن أو ملك الجبريل يعني عل أنها إليهن يا سجود ملائكة إلهي وأن إن عل النقن أيالة المامي عدي عل النقطنا إلهي إنه عل النقن دونه سجارة وحلاص حسين أرنتي أي شيء يهود أو ملك الجبريل أهد أيا سجارة الله حسين ما قفك إلهي عل يا ملائكة يرسوشيسة يو جبريل ملك الجبريل يو ميكائيل ملك الإله ملك ميكائيل إلهه أنت قفك عل النقضة فإن الله عدو للكافرين إلهي عل أيو قال هذا ليه يعني يهود رقم حمد هذا الحكم ذا إن إلهنا عل النقضان رسوشي سنة عل النقضان ملائكتي سنة عل النقضان حدنا دنك كلبان أي شيئان ويرهدان إلهي أكتيس أنكم بوحكوله جنة أنكم جلدون وين إيمان دون تأيقوا رها لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى جنة مجلايو نين يهود أما نين نصارى أم بجلاي مرك إلهي جنة إسكالها أنا عل أي ليهن
ملائكتي سيعليهن رسوشي سيعليهن حدنا إلهي بان نجعله يعني عروتي سي بان نسيدان أبناء الله وأحباؤه عروتي سي يكون جعل أيانه وافتراء بين أبو رشيء حشو دري يهود حق وذا كعاتي إلهي قفك علا النقض ملائكتي سي رسوشي سي جبريل ميكائيل إلهي أصنع عل أيو ليه فإن الله عدو للكافرين إلهي عل حليه يعني قال داس أيو إلهي عليه ولقد أنزلنا إليك آيات بينات ولقد حقيقة أنزلنا وانسود الجني إليك أذيك حقاقة آيات بينات أو عد رسولك صلى الله عليه وسلم أيها وحلله ما دام بينيين كون يهودا لغونا كشفي لغونا شاقي يعني دقن كودا ماشي أي كسو جيدان التاريخ أي صوم مرين انت أسفل لغو شاقي آياتها القرآن وآيات عد أو شيء والبسيط وهكوه شاقي إلهي فضلك سيئنا كواشي ولقد حقيقة أنزلنا وانسود الجني إليك أذيك حقاقة آيات بينات أو عد أيام كوسود الجني القرآن كان وآيات عد dhinac walba oo uu ka hadlaayo waa sidii ugu fiicnad ayuu uga hadlayaa yani ruuxi quraankan uu soo gaaray oo hadhow dhihi doona ma jiro ani waxba la iima cadaynin meel uu quraankan ka hadlay oo san si fiican uga hadlin ma jirto walaqad anzalna wa soo dejina ilayka adiga xagaaga aayatin aayado bayinaatin oo cad wama yakfuru mana ku kufriyo biha bil aayati aayadahaas cad ee ilaahay uu soo dejiyay ee nabiga lagu soo dejiyay ma diido kuma kufriyo wama yakfuru kuma kufriyo biha ayada إلا الفاسقون كوا فاسقين أو ضاعة إلهي كبحي أياكو كفرية لكن ضدك إلهي رميسا قرآن كان مركي أي دقيستان قرآن كان مركي الله آخر وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون مركي حالين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات يا نبي وكوسو الدجني وما يكفر مديدكم كفريو بها آياتها إلا وحاك ديدؤن الفاسقون kuwa daacada ilaahay ka baxay ayaa aayadaha quraanka adiida marka hadaad aragtid ruux quraanka ilaahay garab maraaya oo inuu ku amal falaan ogoleyn kaasi meel xun ayuu u socdaa sifo xun ama tilmaan xun uu qaatay faasiqnimo ayuu qaatay ruux yani hada raali ku noqonaya in magaciisa faasiq loo bixiyana ma jiro saas daraadeed yani si looga badbaado sifadaas xun waa in aayaadka ilaahay lagu amal falo oo aan aayaadka ilaahay la diidin hadii la diido Soomaa yani magaca dooni kale oo qurxiso oo iska lahaw لكن القرآن كحون تلماما آيات إلهي قفك كسنتاجة أما الديداي إنه فاسق يعني وما يكفر بها آياتها كما كفريه إلا وحكو كفريه أو كلية الفاسقون كوا فاسقين يا آياتها كفريه وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون آيان وحكاها اللايان يعني لقن كيهودا يبلن تسين وقف عنين يعني أو كلما عاهدوا مر الله مركي أي بلمان عهدا بلن نبذه وحاطورا فريق كوح أو منهم أيها كمدا هدي لا بلمو بلنك بحد أيها قانان بل أكثرهم سيء بدنيين لا يؤمنون وحوم الرمين عيان وح الله وحي رميسين مالك لقن مالك مرك يهود واسداس يعني مرك النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يمد أو هشيس كأولا قالينا أيها أنبا أغب حي مرك إلهي وحوليه أو كلما عاهدوا مر الله مركي أي بلمان عهدا بلن نبذه وحاطورا بلنتي لإسكوغا فريق كوح يا توريسا أو منهم أيها كمدا بل أكثرهم سيء بدنيهين لا يؤمنون مر مين عيان حق مر عيان انت كسو اسلام يهود وان ير او كمد يا عبد الله بن السلام صحابي اللي هجري هي ان ير سو راعday انت كلا سو ما بل أكثرهم سيء بدنيهين لا يؤمنون مر مين عيان درسينا maanta intaas ku ogyahay وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته